gudoomiyaha gobolka Saaxil ahna gudoomiyaha guddiga ka hortagga ee caabuqa coronavirus ee gobolka Saaxil ayaa ka warbixiyay tirada guud ee saameeyay xanuunka coronavirus ee dadweynaha ku nool gobolka Saaxil waxaana uu ka warbixiyay xaaladda cisbitaalka ee magaalada Berbera iyo siyaabaha loola dhaqmo dadka xanuunkani soo rito injineer Axmed Cismaan Xasan oo ka hadlayana waxa uu yiri ilaa imika inagu intay nagu jirtay gobol ahaan xanuunkeena laga helay hadana tiradiisa guud eegno waa ilaa 22 qof dad fara badan baynu baadhnay oo aynu checking ku sameynay wax badanna way ka bogsadeen dadkeenu wacyigelintaad qaadateen aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa qofku markuu dhibta dareemo wuxuu tagaa gurigiisa ayuu ku egyahay markay oxygen ku yaraato ayuunba inta badan dhakhtarka loola soo xidhiidhaa wacyigelinteena guriga markuu qofku dareemo xanuunka aqalkiisa ku ekaado yaanu u gudbinay sida fariinta caafimaadku inoo sheegayso ee aynu dhammaanteenba fulinayno ee guddiga heer qaranina farayaan ee aynu dhammaanteen ku wada shaqaynayno sharcigii la inoo dejiyay inaynu wada raacno hal la is ilaaliyo insha allahu dhawaanna waxaanu filaynaa inuu kolleyto qalab waxaynu haynayna waynu haysanaa wixii naga dhimanna insha allah waynu sugaynaa waxaan filaynaa inuu dhawaan aynu inoo yimaado mashiinkii weynaa ee aynu maxaan ku lagu baadhay dhigaga oo aynu kaga nasan doono dadkii aynu u diri jirnay Hargeysa aynu kaga nasan doono insha Allah weekan inayna soo gaadhaan baynu ku rajaynahay kullay maalintaas aynu hadalkiisa iyo hawlihiisana u dhigan doonaa geesta kalena gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa dhambaal wacyigelinaha u diray shacabka ku dhaqan magaalada Berbera gaar ahaan dadweynaha ka howlgala goobaha ganacsiga ee meheradaha iyo sariibadaha ee magaalada Berbera waxaana uu ku dardaaray inay xidhaan qalabka ka hortagga ee caabuqa coronavirus dadku waxay xidhanayaan maaska afka wada xidhanayaan markaad soo adeeganaysaan marka aad meelaha buuqa tagaysaan meelaha ciriiriga oo kale aad tagaysaan waxay muraadkiina idin galo waa inaad qalabkiina wada xidhnaataan meheradaha wax iibinaya iyo sariimada kolka laga soo adeeganayna qalabka la sii xidho dadka shaqaynayaana waa inay galoofiska gamcaha iyo kii maxaan ku dhadaa afka bay xidhnaadaan waxa ku jirta badbaadadaada waxa ku jirta badbaadada carruurtaada waxa ku jirta badbaadada waalidkaaga badbaadada bulshadaada ayaa ku jirta waxaynu u baahannahay inaynu ilaahayna tala saarano dadaal kala la imanno inta badan meelo badan runtii wacyigelintu way ka fushay oo dadku way qaateen inta dhimanna waxaanu isleenahay yaynaan ka sugin qof kale inuu ina yidhaahdo idinku kala durka ama kala fogaada waa inuu horta qofku naftiisa ka bilaabo oo isagu marka hore isxakameeyo waxaynu fulinaynaa oo kale inagoo fulinaynaa awaamirtii guddigii heer qaran weli waxa xidhan goobihii weysada maxaan ku dhahdaa iyo suuliyadii way xidheen qofkii isagoo gurigiisa kusoo weysaystay ama goobtiisa kale kusoo weysaystay buu masaajidka uu ku tukanayaa isagoo weyse qaba oo daahira ayuu masaajidka tegayaa bulshadana uu soo ducaynaya isna ku soo ducaysanaya laakiin maxaan ku dhahay suuligii la isku xidhiidhiyay masaajidka ku dhex yaalay iyo weysadii la isku xidhiidhiyay waxaan leenahay qof walba ee weysadiisa ha ku soo diyaarsada banaanka oo isagoo weyse qaba maxaan ku dhahay cibaadadiisa ha guto taxadir dheeraadana sameynaya waliba maaskaana inuu xidho in weeyaan maxaan dadaalkeedaas ku muujiyo waxaan leenahay insha Allah ilaahay nooma keeno safmar macnaha dura ilaahu nooga dhigba barigii hore loo jiray ilaahay mid fudud hay nooga dhigo dadaalku waa mid wada saaran dadweynaha gobolka oo dhammaantood wacyigelintu meel walba gaadhay waxaan leenahay dadaal fiican hal la wada qaato Axmed Cismaan Ali 5TV Berbera.